26 Janawari 1991 waxay ahayd maalinkii hanjabka Soomaaliyeed iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya. Muddadaas dheer kadib ee ku siman 29 sano wax dawlad ah oo dalka ka saldhigtay ama ka dhashay ma jirin. Haddaba, su'aashan hortaale ee jawaabka u baahan ayaa waxay tahay dal burburay sidee dib loogu dhisaa? Dal burburay dib u dhiskiisu waxyaabaha asaasiga ah waxaa ka mid ah dawladda dhalata burburka kadib iyo sida ay u dhaqanto, sida ay ula dhaqanto dadka dagaalka ka soo baxay ee burburka ku sugnaa muddada dheer, sida ay ula dhaqanto mucaaradka iyo kuwii doorashada ay ugu guuleysatay, iyo sida ay u gudato shaqada u taala ama muhiimka u ah dib u dhiska iyo xasilinta siyaasadda. Shaqooyin badan oo muhiim ah dawladda burburka dabadii dhalataa kuma wada filno, laakiin waxaa jira 3 shaqo oo qabashadoodu ay ahmiyad weyn leedahay, horiyo tablayna leedahay, wax weynna ka tari kara saldhigashada iyo hirgelinta dawladnimada. 3daas shaqo oo kala ah shaqo abuuridda, bixinta adeegyada caafimaadka, iyo dawladda oo noqota dawlad nadiif ah. Hawlahaas qabashadooda maadka saameyntooduna way weyn tahay. Haddaba, maxay muhiim u tahay shaqo abuuridda? Sidee shaqo loo abuuraa? Sidee shaqo loogu abuuri karaa dal burburay? Yaase loo abuurayaa shaqada? Sababaha ugu waaweyn ee wadamada burburay ay dagaalada dib ugu noqdaan inta badan waa ragga dhalinyarada ah oo dawladda ka hor yimaada ama ay isticmaalaan kuwa dawladda ka soo horjeeda. Waxaana keenta ragga dhalinta yar oo aan haysan shaqo iyo waxay qabtaan ama aan helin waxyaabihii asaasiga u ahaa noloshooda. Haddaba, ragga dhalinyarada ah xagee shaqo looga abuuri karaa? Inta badan dawladaha burburka kadib dhasha waxa ay xoogga saaraan dhisidda iyo ballaarinta shaqaalaha rayidka ah. Tirada shaqaalaha rayidka ah oo shaqo loo abuuri karaa way yar tahay, mana dabooli karo baahiyaha shaqooyinka loo baahan yahay. Maxaa yeelay ragga dhalinyarada ah ee shaqada loo abuurayo intooda badani maahan kuwa qaban kara shaqooyinka shaqaalaha rayidka ah oo u badan qaar u badan xirfad iyo waayo aragnimo. Shaqooyinka aan xirfadda badan u baahnayn sida ballaaran waxaa loogu abuuri karaa habka aan dawliga ahayn. Waxaana ka mid ah dhinaca dhismaha oo shaqooyin badan laga abuuri karo maadaama dalku burburay dhismo badanna u baahan yahay. Dawladdu waa inay samaysaa canshuur dhaaf xagga qalabka dhismaha ah si ay ugu sahlanaato in dadweynuhu dhistaan guryahooda, iyo in la joojiyo lacagaha sharciga ku magacaaban laakiin baadda iyo handadaada ah oo maamulka degmooyinka ay ka qaadayaan dadka guryaha dhisanayo, oo mararka qaar caqabado ku noqon kara in dadku guryahooda dhisto ama dayactiro. Marka dalku burburo, waxaa la burbura adeegyadii asaasiga ahaa ee ay dawladdu bixinaysay ee caafimaadku ka koow yahay. Waxaa kale oo jira dagaaladii dhacay iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dambeeyey inay dadka u keeni karto caafimaad darro baahsan oo u sii dheer tahay inta ku dhaawacanta qaraxyada iyo weerarada dhaca baryahan. In dawladdu bixiso adeegyo caafimaad oo tayaysan waxay daweynaysaa dadka dalkan oo bukaanka u batay xagga jirka iyo xagga dhimirka labadaba. Dadku inay bogsadaan waxay horseed u noqonaysaa in dawladdu bogsato. Dawlad nadiif ah oo hufan iyo hagarli'i ku shaqaysaa aad bay muhiim ugu tahay kasbashada adeeca iyo taageerada dadweynaha. Maalintii ay dawladda Soomaaliya madax bannaanida qaadatay ilaa maanta, dadka waxaa lagu weerariyaa waxbaa la musuqay iyo waxbaa la maasuqay. Dawladnimada reer hebel baa ku hodmay iyo dawladnimada reer hebel bay dulaysaa ama reer hebel baa dawladnimada duminayo. Baladaas iyo dulmigaas isku dahaarani wax run ah iyo wax been ahiba waxay sababeen in dadkii kala aamin baxo, dawladnimadana ka aamin baxo. Waana tan lagama maarmaanka ka dhigaysa in la helo dawlad nadiif ah oo miisaaniyadda dhowrta. Waxay sabab wanaagsan u noqonaysaa in dadweynuhu aqoonsado dawladda, aamino in dawladdu u shaqaynayso, dantooduna ka shaqaynayso. Waxay kaloo sababaysaa in siyaasiyiinta xunxun ee lacagta dadweynaha gurta inay siyaasadda kusii jiri waayaan, kuwa wanaagsanna ee xalaal miiradka ahina ay helaan fursad ay dadka iyo dalka ugu shaqeeyaan. Haddii dawladdu si hagaagsan oo howlkarnimo leh u qabato 3daas shaqo, waxaa fududaanaysa in dawladdu hogaamiso dadka. Maxaa yeelay haddii raggii dhalinyarada shaqo loo abuuray oo ay ku sii jeedaan, intii bugtayna helaan daweyn iyo baxnaanin, oo dawladda nadiifka ah darteed kuwii dawladda warka keen xumo tashiilka jiray waayaan waxay sheegaan, waxaa shaki ku jirin in ilaa xad la helayo siyaasad xasilan iyo dad dantooda u xakamaysan, taasoo Soomaaliya ku ridi karta dariiqii dawlad wanaagga iyo nabadda waarta ku wada noolaadka.